adduunyada sideeda marti aan ku nahay qofkii maanta nool biri ma noolo kullu nafsin allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada muqdisho lagu dilay atooraha badda oo ahaa shakhsi aad loo garan ogyahay magaciisa iyo muuqiisa intaba. haddaba sidee ayuu u dhacay dilka atooraha badda? muxuu sababsaday? maxayse tahay dhacdada yaabka badan ee ku gadaaman dilkiisa? maxaa ka jira inuu sababsaday muuqaal uu duubay dartiis? waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee ku saabsan dilka atooraha badda, balse marka hore daawade u duceey marxuumka inuu allah jannadiisa geeyo, sidoo kalena xaqa la hor keeno gacanku dhiigilayaashii dilkan geystay. like inoo saar muuqaalka oo sheergarey si uu u gaaro saaxiibo fara badan uguna duceeyaan marxuumka. sidoo kale haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato Qarinimo TV, follow soo dhaho si aad u hesho barnaamijyada aan halkan ku baahino. ku mahadsanid. wiilkan dhalinyarada ah ee loo garan ogyahay atooraha badda ayaa ahaa shakhsi magac iyo maamuus ku dhex lahaa bulshada Soomaalida. wuxuu ahaa actor, samafale iyo sidoo kale askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. waxaase caawa gacanka xaq daran ay ku dishay magaalada Muqdisho. laba wiil oo ku hubaysan bastoolado ayaa fulisay dilka atooraha badda sida aan xogta ku helnay. waxaa la sheegay inuu ku sugnaa xaafadda Taleex ee degmada Hodan xilliga uu dilkan dhacayay marxuumka, isaga oo markaasi ka soo baxay afurinta dad tabaalaysan oo ku sugan degmadaasi. atooraha badda wuxuu ahaa shakhsi iska xil saaray caawinaadda dadka masaakiinta ah ee ku dayacan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay dayaceen dadkii mas-uulka ka ahaa. sida ku cad muuqaal uu soo dhigay bartiisa Facebook ka hor inta aan la shaacin meydkiisa, wuxuu afurinayay dad masaakiin ah oo aan haysan afur. xogtu waxa ay sheegaysaa inuu samafalaha maalmihii la soo dhaafay oo ururinayay dhaqaale aan macquul gal ahayn, kuwaasi uu u aruurinayay dadka masaakiinta ah ee aan haysan wax ay ku afuraan iyo wax ay ku suxuurtaan intaba. waxa uu sidoo kale dadaal xooggan ugu jiray sidii uu u ciidsiin lahaa kumanaan carruur ah oo iskugu jira agoon iyo kuwa tabaalaysan oo aan qoysaskoodu waxba awoodin. balse caawa koox hubaysan ayaa waxa ay ku dishay magaalada Muqdisho. Soomaalidu waa bulshada kaliya ee kooda waxtar ama wax u qabta oo isla iyaga sababsado. wiilkan dhalinyarada ah wuxuu sidoo kale ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka. waxa uu hayay shaqo ay qaban waayeen dadkii dalkan iyo ummadan mas'uulka ka ahaa. wuxuu sidoo kale ahaa actor bulshada u soo bandhiga muuqaalo ka turjumaya shaqada ciidanku ay u hayaan bulshada iyo sidoo kale muuqaalo madadaalo ah oo ugu talagalay inuu ku madadaaliyo bulshada. allah u naxariisto atooraha badda. daawade waxaan mar kale ku xasuusinayaa inaad u duceyso marxuumka inuu allah jannadiisa ugu deeqo, like-na aad saarto muuqaalka si muuqaalkan uu u gaaro bulsho badan looguna duceeyo marxuumka. mahadsanid.